أنا وقتين waxaan ku maqlaa undii hawlo qaran iyo qaar xusbi way isku dhex jireen si fiican way ku soo dhamaatay waxaan aad u hambaleynayaa dadkeenii dibadda oo hadda baraarugay oo ay gashay magaranaysaa dardar cusub galiyay aqoonsiga Soomaaliland iyo sida wada shaqeyn lahaayeen taas ay sababtu weyn u tagay marka hore shirkii Suudan kabacdi waxaan tagay London markaa waxaan ku soo noqday Imaaraadka sharci baa jira wixii sharci oo dhan diiwaangelintu yaala waan ku faraxsanahay diiwaangelinta loo kordhiyay waqtigii guddi diiwaangelinta ay arrintan hadda qofkii dacwo qaba uu geysan kara laakiin maalinka TV-ga xisbiga laga dacaadeeyo gudoomiye kale loo sameeyo gudiyalka la sameeyo waxaan dacaade inagu soo marin adduunka intaan san jeeg xisbigu jirno weli ma arag xisbi nidaamkiisii loo nidaam laga ag sameeyo oo media hon laga hadlo waxaan leenahay arrintaasna anagu xisbigu waa furan yahay qofkii damcaya ee golaha dhexe ku jira uu ordiya dawladdu waxa weeye markay mashruuc qabanayso waa inay ummadda ay ka raaridaa mashruuca wax u qabanayso inay dusha ka keenta maahay waa inay dadka meesha degan ay faa'iidadiisa iyo sababaha iyo dhibka ka soo gelisa haddii kale khaa'inka ninka danla ah ayaa tagaya oo been sheegaya been fakada run ma gaadhalay marka waxaan leenahay mashruuc ha socdo oo biya la qodiya dhulkaalna aad guud kala celinaya oo jiilaalkii marka xumaad waa la furiya Soomaaliland iyo Soomaaliya ku kulantay Turkiga أنا waxaan arkay arrintaasi ma kaan loo baahneen dawladda Xasan Sheekh waa dawladdii baabiisay wada hadaladii si fiican ku sameysmay bishii hore Maaris 2015 ku ogeedeen waxay soo direen Turkiga soo direen haddana waxa lagu jira waqti olole oo doorasho ku soo dhow marka aan isticmaalo oo campaign la inaga dhigto Xasan inaga dhigto ma qurux badna dawladdani waxa dawlad la wadi kara hadal maaha waxyaanay qadiij in suurta in isbarto way soo rinaagan إنه حسن الشيخ يا administration كيسة ونسنقانا مكانات ضاعت معها وكتوستوس هنشعلها إن أنت الدولة سماش كبحيسو أنا واحد هذا اللي أنا دعاء وحويد مصيبة ده علي دت كين كل أذان وبحيني لأن يرتيني كل تبضع مكرونة كتحسنين قرنك يدت كيه الكعبة وأنا سيبدرو إنه لأن يرتيني nabadda ku barbaartay jaamacadaha ka baxday ku dhameystay cilmigeedii iyo Soomaalida ka soo carartay xabadda misan kuwa xamar jooga xabad ka soo cararay inay meel ku wada dhintaan waa inoo nasiib daro way isku noqdaan isku maseer noqdaan dhalinyarta waxa loo baahan yahay waxyaalo badan baa keenaya tahriibta waxa keenaya marka horeysa waxa weeye shaqadii waddanka shaqo jirin دولة ما ضدك ما قاري كرتو حلو بهاي إن دلك لو سمايو برنامج كي مالك لو قرصنها ولا سمايو شوي مال قش سوتشي تا لو بهاي هاي